السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقايا قيمة له كحرن سهم كابل تي في ومركلي مقال كلا عصب مقال كان وحن وهالي دونا سده الدل أو كسب بيري كلا قيبسيغ أفريقيا يولي فرانسيسكا أو كموتشي عبسي آد حوغان يقلقل وين فضلا هدي آد كعصبتها channel كان وحين وكاعد ساين أنا سبسكرايب سارتو سينشر جرس مقال كهاي لون إن لايك سارتو وعي فكر تلي تسأل وحين نوغر بكرتا قيبته سيكومنتيغا هدي آد هوري إنو لتشوكتنا waad ku mahadsantahay waxaan ku leenahay soo dhawow hana iloowin inaad muuqaalka like saarto sina share gareyso commentiga iyo ra'yigiina waa inoo muhiim inoogu reeba qaybta hoose ama ciwaanada shaashada ka muuqda iyagoo si toos inoo soo gaari doona hadduu ilaahay ka raali noqdo insha Allah howlgalka barkaan warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska waxay ku andacoonayaan in Ruushka laga yaabo in uu gacan ku leeyahay afgambigii xukunkii laga tuuray madaxweyne Ibrahim laba ka mid hogaamiyaashii afgambiga ee Colonel Malik iyo Diana iyo Kamar ayaa tababar lagu qaaday Ruushka tan iyo bishii Janaayo 2020 iyadoona qayb ka ahaa heshiiska iskaashiga militariga ee Moscow iyo Bamako ee 2019 wax yar un kadib markii ay u noqdeen Mali waxay afgambiyeen ninkii Faransiiska ahaa ee ku sugnaa dalkaas bishii Agoosto ee 18keedii uma badna in calooshood u shaqaystayaashii Wenger ay imaan doonaan Mali haddii Faransiisku joojiyo howlgalka ee barkaan oo qayb ka ah heshiiska militari ee ay kala saxiixdeen Bamako iyo Moscow Ruushka ayaa doonaya inuu dib ula soo noqdo saameyntii midowgii Soviyeeti ee galbeedka iyo biliba colaadaha Ruushka ee Faransiiska ee galbeedka Afrika waxayna ku fidsan tahay waqooyiga iyadoona Paris qayb ka tahay saameynta taariikheed ee ay la leedahay imaatinka calooshood u shaqaystayaasha Wenger ee ceelasha saliidda ee gobolka Parisna waxay ka ciyaaraysaa doorkeeda fiisan ayaa loo arkaa albaabka waqooyiga ee laga soo galo gobolka saaxil oo kooxaha hubaysan u adeegsadaan saldhig dambe oo lagu bartilmaameedsado danaha reer galbeedka iyo waliba dawladaha gobolka imaatinka Ruushka ee gobolkaas wuxuu khatar ku yahay saameynta Faransiiska wuxuuna filayaa in laga ogolaado in intii u dhaxaysay 2014-2019 Ruushka in uu 19 heshiis iskaashi military oo farsamo la saxiixday dalalka Afrika qaarkood sida ay ku waramayso raadiyo laga leeyahay Faransiiska oo soo xiganaya daraasad Ruushi ah si loo muujiyo baaxadda iskaashi Ruushka iyo Afrika ee imaatinka albaabka military ee kobaca sanadihii dambe sare u sii kacay marka loo eego helista iyo amniga si kordhaya ay ku leedahay argagixisnimada kacdoonka iyo liga fowdada ay wadaan wadamada ku tartamaya qabsashada Afrika Shiinaha ayaa sidoo kale ah wadamada tartanka weyn ugu jira in uu isna saameyn weyn ku yeesho qaar ka mid ah dalalka Afrika Shiinaha wuxuu u dhaqaaqay Afrika si xukunkiisa ugu soo rido taasina waxay ugu wacan tahay baaxadda ay leedahay qiyaastii 7 jeer ayay ka dhigan tahay dhaqaalaha Faransiiska inuu hoos u dhacayo sida ku xusan qiyaasaha la sameeyay 2019 ee sanduuqa lacagta ee loo soo gaabiyo IMF taasi oo walwal ku haysa Faransiiska inkastoo uu caqabadaha Ruushka ee Faransiiska ee Afrika ay salka ku hayso amniga iyo waliba iskaashiga military ay la leedahay Afrikaanka haddana qatarta Shiinaha ee Paris waxay salka ku haysaa iskaashiga dhaqaale gaar ahaan maalgashiga tooska ah gaar ahaan qaybaha saliidda ganacsiga amaaha iyo waliba kaalmaha dhaqaale qodobada ay Beijing kaga wanaagsan tahay Paris ayaa ah in aysan isku qaldin siyaasadda iyo waliba ganacsiga sidoo kalena in aysan isku dajin siyaasadaha gudaha Afrika taasi oo ka dhigaysa xulashada ay jecel yihiin wadamadan fahamka Shiinaha ee baahaya ayaa ka wanaagsan tartiibka marka qaarkood isla weynida fahamka maalgashiyeed ee reer Yurub iyo waliba ururada deeqaha bixiya sida NGO-yada madaxweynihii hore ee Senegal ayaa sida yiri Faransiiska ayaa wuxuu leeyahay cadaadis xooggan oo kaga imaanaya awoodaha galbeedka iyo waliba bartamaha Afrika wuxuuna caqabad ku yahay soo galitaanka wadamada Shiinaha ee Silk Road ee hawdka fog
ee Afrika waa faranka fiig dhamaadka wareejintii ugu dambeysay Shiinaha waxaa lagu qasbay in uu maro bangiga dhexe ee Faransiiska ka hor inta uusan caasimadda u keenin lacagaha wadamada Afrika ee sheeganaya faranka Western African ama faranka Central Africa. dhowr qof Afrikaan caan ayaa riixaya xorriyadda nidaamka lacageed ee Faransiiska kadib iskaashiga isku xiraya dhaqaalaha 14 ka mid ah gumeystihii hore iyo waliba nidaamka dhaqaale. Shiinaha wuxuu ku biiray baaqayaashaas Parisna waxay ka jawaabtay qaar badan oo ka mid ah dalabaadiyadaas markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku dhawaaqay booqashadiisii Coton bishii December 2019 in uusan weydiisan doonin wadamada la isku yiraahdo Benin, Burkina Faso, Coton iyo waliba Ghana, sidoo kale Benin, Mali, Nigeria, Senegal iyo waliba Togo. boqolkiiba 50 wadamadaas lacagahooda waxay ku dhacdaa qasnadaha Faransiiska. horumarinta waxay u adeegsatay istiraatiijiyadda Shiinaha ee ballaarinta maalgashiga galbeedka Afrika. Nigeria iyo waliba Ghana ayaa ogolaaday in Shiinaha uu maalgashi qoto dheer ku sameeyo waana wadamada soo dhaweeyay. sidoo kale dalka Djibouti ayaa isna kamid ah dalalka uu Faransiiska hore u gumeystay oo kamid ah bariga fog ee Afrika. Shiinaha kaliya ma uusan kobcin dhaqaalaha balse wuxuu u sameystay saldhigyo military oo ka sameystay Afrika oo aan ka fogeyn Faransiiska iyo waliba Mareykanka saldhigyadooda. awoodaha jilicsan ee Turkiga wali waxay u sii muuqdaan in gumeysiga Faransiiska uu Turkigu quwadda saddexaad uu ka cabsada noqdo. mar uu waraysi siinay Emmanuel Macron ayaa falaartiisa ku tuuray in Turkiga uusan ka mid ahayn wadamadii gumeystay Afrika. Ankarana waxay muddo dheer xasuusinaysay Paris xilliyadii gumeysiga ee Afrika, taasi oo xasaasi u ah shucuubta qaaradda. tan iyo sanadkii 2015 xiisadaha Turkiga Afrika waxaa si tartiib ah u gargaaray xiriirka bini'aadanimo ee ay bixisay hay'adaha iskaashiga iyo waliba isku dibadda Turkiga. 22 xafiis ayay ka furatay iyo waliba ururo kuwaasoo bixiya sida ururka bisha cas Turkiga iyo waliba gargaarkiisa bini'aadanimo, gaar ahaan dhismaha asbitaalada, iskuulada, masaajidada, qodista ceelasha iyo waliba raashinka. kumanaan arday Afrikaan ah ayuu siiyay waxbarasho jaamacadeed iyagoona Turkiga wax ku bartay. barnaamijkiisii deeqda waxbarasho ee Turkiga ujigiisa labaad wuxuu diiradda ku saaray xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah dhaqaalaha, iyadoona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqday in badan galbeedka iyo waliba bartamaha Afrika. booqashooyinkii heerka sare uu ku kala bixiyay dalalka Afrika intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2019 oo kaliya, iyadoona in ka badan 500 oo booqashooyin ah bishii November 2019 oo lagu calaamadeeyay adeegsiga Turkiga ee waqooyiga adag, waxayna ku guuleysteen in ay ka badbaadiso xulafadeeda galbeedka Liibiya burburkii ku imaan lahaa ee maalgashiga uu Faransiisku ku sameeyay. iyadoona Turkiga uu in badan ka caawiyay Liibiya burbur badan oo soo gaari lahaa dhamaadkii sanadkii 2019. maalgashiga ee bariga waxaa lagu gooyay wadnaha Tripoli ilaa 6 kiiloomitir. Faransiisku taasi waxay ku aad caqabad, wuxuuna isku dayay inuu in badan dhawarka ka jibiyo Turkiga. Faransiiska ayaa isku dayay inuu cadaadiyo Turkiga isagoo abaabulay xulafadii reer Yurub. Faransiiska iyo Turkiga xiisada badda ee ka dhaxaysa ay aad u sii xumaatay, iyagoona Faransiiska uu doonayay in uu Turkiga uusan wax garab ah siinin dowladda Liibiya. Faransiiska ayaa doonayay in uu mucaaradka ku guuleystaan, sababaha uu doonayay ay ahayd in uu abuuro waxa la isku yiraahdo dalalka saaxil. uu aaminsan yahay in uu gumeysan jiray haddana uu yahay wadamo dhaqaale ka samaysto. guud ahaan waa naga inta barnaamijkeeni aan uga hadlaynay saameynta iyo waliba dhibaatada ay ku hayaan wadamada reer galbeedka Afrika, iyagoona ay aaminsan yihiin in wili ay tahay bar ay gumeystaan ayna ka samaystaan dhaqaalihii wili iyagoona canshuuro iyo lacagaha ugu badan ee ka soo baxa Afrika ay gacanta u galaan wadamada reer galbeedka, haba ugu horeeya Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka iyo Ingiriiskaba. waxaa kaloo jira wadamo badan oo iyagana doonaya dana kale sida Shiinaha, Japan iyo waliba qaar kale oo badan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan waxaanu ka codsanaynaa like saarto, siina share gareyso.